iyadoo ilaa habeenkii xalay ahay roobab laxaadii ka daayeen guud ahaanba gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera ayaa saaka waxay shir jaraa'id ku qabtay xafiiska gudoomiyaha gobolka saaxil oo ay weheliyaan maamulka dawladda hoose degmada berbera iyo maareeyaha dekedaha Soomaaliland ayaa ka digay khataraha ka dhalan kara roobabka ka daayay gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera oo ay soo galaan daadadka ka yimaada deegaanada buuraleyda ee ku xeeran degmada berbera ugu horeyna waxaa halkaa hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidid waxaanu sheegay in ka dawlad hoose ahaan ay heegan geliyeen gaadiidka iyo shaqaalaha dawladda hoose degmada berbera waxaa jira daadad fara badan magaaladu waxay hoos haganaysaa wax laali waxa buuraha ka soo jeeda daadka shir ka soo dhaca wuxuu yimaadaa badda sidoo soo socdo baddu yimaadaa daadad ka badan awoodeena ayaa soo galay magaalada kuwaasoo intii dooda hoose ay adoodeeda la dagaalami karaysay ee inta ka badbaadisay waxaan se u sheegaynaa maadaama roobka urtay in qof kasta muwaadin isaguna uu isbambaaniyo iskana ilaaliyo goobaha ay daadkaasi kusoo fooleeyihiin intaan awoodeeda ka badbaadin karin oo ka badbaadin weliba waana wadana habeen iyo maalinba maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi ayaa isna dhankiisa sheegay in maamulka dekeda berbera ay ka diyaar garoobeen roobabka ka daayay deegaanada xeebaha magaalada duleedkeeda mas'uuliyadda baabuurta gaadiidka wadana iyaga mas'uuliyadda leh ilaahayna waxaan ka baryaynaa in calaamad nasiiyay in ilaahay mustaandeeda laga ilaaliyo gudoomiyaha gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa sheegay in ilaa hadda aanay wax khasaare ay ka dhalanin ka daayay deegaanada gobolka saaxil kulankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay nimcada ilaahay nasiiyay roobka daaya nimco walba nusqaan bay leedahay inaynu ka taxadiro meelaha dooxyada la iska ilaaliyo meelaha daad mareenka ay bulshada gobolka saaxil meelaha roobka ku daayaan ay aad uga taxadiraan ay dooxyada ka fogaadaan baabuurta maraysa jidka dheer gobolada isku xidhaya dooxyada ay marayaan ay iska ilaaliyaan ay ka taxadiraan ka joogsadaan oo aanay haligin dadka ay sidaan oo daadku marka uu yaraado ay ka tallaabaan iyaga ayaa mas'uulka dadka saaran baabuurta ay wadaan darawaliintu aad iyo aad uga taxadiraan dooxyada ay marayaan gaar ahaan dadka berbera roob badan baa maanta daay dooxyo badan baa laga yaabaa inay maxaan ku idhaahdaa magaalada qaybo saameeyaan ee ka fogaada meelaha daadadku marayaan meelaha taagada loo baxo diyaar baan u nahay maxaan ku anaguna inaan maxaan ku idhaahdaa wacyigelin horena waa laga sameeyay geesta kalena waxaa saaka heegan la geliyay dhammaanba shaqaalaha iyo gaadiidka dawladda hoose degmada berbera waxaana goobtaas laga soo jeediyay xildhibaan Cabdirashiid Xasan Awaadan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada berbera iyo xogayaha dawladda hoose Cabdikariin Aadan Saciid waxaana hadaladoodii kamid ahaa roob saaka shantii bilood ilaa hadda inaan haya dhammaan daafaha magaaladana maxay tahay roob fiican baa hayo alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baan u mahadnaqaynaa barwaaqada oo barwaaqadii sanadka hore inagu xiriiriyay ilaahay baa mahad leh marlabaadka waxaa soo galay biyo badan magaalada ee si la socotaan magaalada berberna waxay ku taallaa afaafka dooxyo fara badan runtii waxaana daadku soo maray dhulal badan oo aanu 40 sano iyo 30 sano toona soo marin maamulka dawladda hoose isku duuban runtii iyo ciidanka dabdamiska qaranka qaybta ka joogta magaalada berbera ee gobolka saaxil oo iyaguna runtii gacan weyn geystay waan u mahadnaqaynaa shaqaalaha saaka shantii iyo barkii ilaa iminka waxay gacanta ku hayaan sidii ay magaalada biyaha uga saar lahaayeen dareenjida si fiican buu shaqeynayaan dhowr xaafadood oo magaalada kamid ah biyo way soo galeen laakiin cid ay wax yeelan ma jirto laba guri bay si baan biyo u galeen labadii gurina dawladda hoose ayaa ka saartay shaqaduna way socotaa waxay isdhex socdo shaqadii iyo roobkii baa isdhex socda alxamdulillaah rabbil caalamiin in ilaahay baan ku mahadnaqaynaa inaan cid wax ku noqotay aanay jirin roobka yareed ama inta inkastoo maanta badnaaba oo biyo badan fadhiyaan dibteeda in dadku ka diyaar garoobaan dawladda hoose waxa weeye culays fara badan baa runtii ay saartay hawsha laga qabtaa oo aanu ku haynaa arintaasna dadkuna inay dhinacooda iskana ilaaliyaan meelihii biyo soo gali jireen sida xulunka oo kale iyo meelaha la midka ah inta badan bini'aadamku nimcadu haye ma yaqaano laakiin anagu waxaan nahay shaqaale u shaqeeya bulshadiisa shaqaalaha dawladda hoose waa shaqaale u adeega bulshadooda waxaanu ka sii wadaynaa halkii hore adeegaanu qaban jirnay shaqaalaha dawladda hoose degmada berbera waxa ay ku dadaalaan
iska daa biyo fadhiista magaalada inay ka saaraan inay marka dambana ay gacanta mariyaan waxaan leeyahay halkaa ka sii wada qof walbana waxaad aamintaa oo aad qalbigaaga u sheegtaa hawsha aad hayso in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajar kaga heliso binaadamna amaanka ma rabno Dr. Ismaan Ali 5TV Berbera